السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي إندونيسيا إن شاء الله halkan أنا معاون إن شاء الله جنالكن أنا قد أقوم عدرني ناجح إندونيسيانكا من waxaan u sameynay oo aan la galnay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba especially dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha North America Europe insha Allah iyo wadankiiba insha Allah waxaan rabaa janaalkan waxaan u tala galnay inaan siino macluumaad ku saabsan guurka dalka Indonesia dad badan insha Allah ma aysan maqal ma yaqaanin wadanka Indonesia Soomaaliya wadanka Indonesia waa wadan ku yaala Asia dad majority waa wadanka ugu badan islaamka dunida wuxuu ku degan yahay wadanka la yiraahdo Malaysia wuxuu ka kooban yahay ilaa 13,000 oo qabaa'il ayuu ka kooban yahay iyo ilaa waxaa lagu qiyaasaa 18,000 oo island iyo ilaa dhowr kun oo lahjad haddana waa dad hal wadana oo wadankooda jecel marka ay maqlaan magaca Indonesia way qiiroonayaan waxaan halkan ugu tala galnay inay u soo macluumaad ku saabsan ragga dhalinyarada Soomaaliyeed qaas ahaan oo gurdoonka ah oo ku nool doonida daafadeeda haddii aan nagu cusub tahay janaalkan please subscribe and like and share so aan idinku soo gudbin insha Allah waxyaabo macluumaada iyo waxyaabo aad ka faa'iidi doontaan insha Allah oo ku saabsan xagga guurka dhaqanka wadankan Indonesia oo ah wadanka ugu badan insha Allah magaalada aan deganahay waxay u jirtaa caasimadda ilaa 9 saacadood tareen waxaa la yiraahdaa Jakarta waxay ku taallaa Central Java ama Java Java Island waa 3 waa East Java Central Java iyo West Java dadku majority 95% waa Muslim dadka wadanka noqon waxay ku hadlaan wadan la yiraahdo Bahasa Indonesia waxay isku luqad yihiin wadanka Malaysia oo ay ku isku dhagan yihiin waa sida Somaliland iyo Koonfurta waxaan insha Allah aan wareysi badan iyo video badan soo qaadi doonaa dumarka Indonesia xagga tacarufka marka ay isbaranaysaan iyo marka ay isguursanaysaan insha Allah waxay yiraahdaan tacaruf waa kelmad carabi waa isbarasho inaad barato qofka xaaska oo ay guursanayso xaaskaada inaad isbarataan dhan walba aad ka barato dabeecadeeda ma qof fiican baa ma qof xun baa ma qof xanaaq badan baa ma qof kulul baa ma qof qabow baa marka wax walba inaad barato wadaas waa tacaruf waana wax ay diinteena qabto oo insha Allah rasuulka uu ugu daarmo in aad barato xaaskaada inta aad guursanto ilaahay xusuuso ilaahay wuxuu u yiri waa inaad guursataa gabar muslimada ma dhihin waa inaad guursataa gabar Soomaaliya ama gabar ajnabi ah gabar muslimada oo jeceshahay oo aad u bogto akhlaaqdeeda iyo diinteeda waxaana ku qaataa diinteeda ayaa nagu badan wadankan marka aad dumar guursanayso waxaa jira wax la yiraahdo mahar oo ay dadka dunida islaamka ay maharka wadankaanu waa labada qof wax isku afkartaan laakiin qaas ahaan maharka wadankaanu waxa way dumarku waxba ku xajiyaan waxa ay ku xajiyaan oo kaliya waxa ay sii karayso insha Allah adeeku waxa badanaa waxay isku guursadaan sajaadad iyo salli kitaabka quraanka ah iyo farqaanti oo ama $10 $20 meherku wax qiimo uu ku dhisan yahay wadankan adiga guurka Soomaaliya guurka waa sida labada wiish xaflado la dhigo baqbaqla dadka Indoneesiyaanku dumarkooda ragga ku xajiyaan waxay ku xajiyaan oo kaliya waa in aad مسؤول أي قاعدة كذا يسوق دقة كذا يسوق ما أنا واحد يراسل بقلينا واحد هذا جورك واحد كذا بيرنو ما إحنا واحد يسمع دقة صارنا كنت في المكان دقة صارنا حكي صارنا إن شاء الله أن نقول بروك مركا دقة كوس واسطة حق الدبيع هذا هي دقة كودا وركض الدبيع دمر كود رجودا يا دمر كود يقود الدبيع رجود أن نقطه أوها أما الجنايب هنقول أما ذكر بس ودك الرجل ما يقانين من يقص الحرية يا وحركة يقص بدون هذا النظر وحكوا قرن يسوون كان ناك اللقب ناك اللقب ما كأي سوء هذا اللي حيجي سوء كذا فناك ناك حيكون دقيقة سنين كذا نحن هذا قرن يسا جبنا اللقب أي كان يقص حاسم
إن حاس الخبر ما يقانين قبل الخبر حاس رجود إنه كوسق جامان وده كان هو حبيرات الملحين ويجرى الحيابة رقم حماة معنا لكن الحوبيين ودمر قدم قوية مهركو يا واحد جهابيرات الملح وحي أمسيه قول أيها كم يمسمها ولماذا وقف بسيديس waxay ku xijiyeen ragooda walimada ya waxa aniga fraction bulhaan hadii aan kula baxay waxaan ku guurtay lacag ilaa 200 300 US ya waxaan u galay Farantiin xaskii walimada waa u sameeyay reerka qaraabadeeda ayeeda abiyaasheed joogna oo weyn hada wasala sheedo wada kibna xaafadeena u soo marka dhaqanku Indoneesiyaanku dumarkoodu waa sax waxaa jirta marka hore waxa weeye waa inaad adigu aad qof akhlaaq leh ya akhlaaqdu ya waxay la mid tahay diinta qof aan akhlaaq lahayn habeeraate ya waxba habeer ma sameyn karo marka sidaa daraadeed dumarku aad iyo aad muddo ku badiyeen ma sha Allah markaas aragto boqol marka aragto anay 10 rag ah waxa arkaysaa ugu yaraan boqol dumarka aad u wada raggu ku badan yahay laftiisa oo wadanka afraad oo adduunka ugu tiro badan ilaa la socotaan mooyaane waxaa ka horreeya Jiinaha Indiya Mareykanka waa wadanka afraad wadankan waa wadan dhaqaale leh waa wadan aad u weyn ya oo wax walba habiraatay dibadda dheefay oo isku fillaasa gaaray xagga cuntada waxa habiraatay waxa aad loo cunaa wadankan oo beertaan waxa la yiraahdo bariis oo meel walba ka ودنا هدو أو معناها فلاشة حتى في ذلك قالوا أو ودنا قالوا وحول بقى أو برادك ترى ودنا كان ذكر وعدت أو كراه كعنده لا يدوس الناس بقول كيف بقول اللي قد يقول كان أفريقيا أو واحد ما يسوي في مركز إن شاء الله واحد يسوي واحد ففاهير بقى يقصد لكن حق نقل جنرال هان جوركو واسكا marka dumarku doodu dumar dhaadheer way jiraan dumar gaagaaban way jiraan ogaad dumarku waa dad gaagaaban way jiraan dumar xoolaha yara gaagaaban dumar dhexaad way jiraan dumar dhaadheer way jiraan marka qofku waa doofis laakiin dumar boqolkiiba boqol iyo dumar ragooda ka dambeeya ay oo ragooda adeeca waxaan ku soo celin masruuf ibada inta ibada halka ay waxa habeeraatay ay qaadeen dumarka marka waxaan ku talagalnay wixii macluumaad إن شاء الله في سبيل الله إن نقود مرة اللي رسول الله وقدوم ما ندوني إن شاء الله هو حكسو مالك خلقه يا وليبو حام حكس ساعة اللي لا أنا ولد بورس رجع هروب بورس إن شاء الله أنا حكس أو مسألة إن شاء الله اللي لا أنا بورس هو وليبو كلنا نتبع بعض مركا إن شاء الله وحي معلومات نلا صعد في ديال الصبح يا سوساردنا واقعنا إلا بنت دوادة ما بني بر آدم مشكل سنة إن شاء الله حقنا دقنا حواق نحسر بنقولنا مركو آدم مشكل لكن إن شاء الله هذا مرة بوحيسوا بدينا الفيديو إن شاء الله وحيسوا بدينا حق عبادة بنت سيدنا حق مساجد كذا يا حق الدخل كودا يا عمر كسيدي هبوراتين هو قاركود واستوري قارن أسطورين وجه لكن أيوة أسطورين اجتماع قوي هذا صلاة بركة الآدمي صلاة والدنيا بداية من هذا السكر بركة ودكار ووت ربك أنا وقوم وآدم بدي وحال الله يرجع قصده إلهي وحال العدد من عبودة سمدر إلهي سمدر أيوة بركة في جانب تذكر بركة وتدعى فيه حاسبته سلق النبي صلوات صلى الله عليه وسلم إيه أسماء الحسنى أي آدي آدر الله لابد أنا وهو حيابها لوكس وضع أحمد إلهي منه سمد اللوكس ودول بيرها خضارته وديجها يا وحول بقى تحت الرياض وآد إنه معاه مركا بني آدم وقلدان وقلد بديل لكن فير ودك كانوا ليك كوني فرا وسدان لا حاسب أن قف وحول قلين مركا إن شاء الله واحد بدن أيا سومانا دانا هدان كبر الدروس ودك كين وهجاني مركا ضد ودك كين حتى ما أنت معمول وضد مجرمين وضد عروتودي المودي ما يقول أنت يوم تصدق شلمات تصدقتي أو حبيرات واحد دم ودك أي كلمة ضد كانوا ود ضد ودك ودك جعل الدروس
وأبجد وعصاع السواق السياق بقول وصومالي وفهم ده كان الإنسان كله واكل الخضر واكل الدقن يا واكل الدويه مذوبة كتره وكتره عدانا كتره قار كريستنا كتره قار منسينا كتره يا ولا قدروا ودن وضد على ودن الجلوس وسوق هذا واكل أمنك حجيسة وودن بقول كيف قبلوا أمن إلا مدة إلا مدة درسنا ودن بقول شو وودن بقول كيف بقول قفصة في الأمن waayo amniga ayaa wax walba iyo nolosha meelaha amni lahayn waxa beelaatay nolol oo jirta marka insha Allah hadii aan nagu cusub tahay aan dhiirigelin ya subscribe and share our channel ya Ali Family Indonesia ama naagaha Indonesia ama naag Soomaali waan ka insha Allah wala soo wixii su'aalo qabto insha Allah waan soo weydiisan بجينا فيسبوك عندي أداوته إن شاء الله حكينا يسمونه كذا واتساب 16 إن شاء الله أخبارات ومعلومات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.